مشروعان bilowgiisii wuxuu ahaa 2014 horaantiisii markii aan bilownay qoraalka proposalkii mashruuca lagu dhisi lahaa oo runtii si wanaagsan aan wada shaqaynay wasaaradda aad ugu mahadcelinay wasiirka dala joogo waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa hay-addii fankan bixisay aad ayuu naga shaqeeyey oo SSF ay wakiil ka tahay nala joogto maanta xamdi mashruucan 2014 ilaa hadda aan joogno bisha May kowdeeda intaasi uu socday mashruucan runtii waxaan isleeyahay wuxuu qayb weyn ka noqon doonaa isdhexgalka bulshada maadaama uu yahay mashruuc bulsho oo dadkoo dhan u furan yahay caruur dad waaweyn dhalinyaro intaba ay ka soo qaybgeli karaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan intii gacan ka geysatay hay'adda tadaamun fulinta keliya ma ay lahayn sida la socotaan dad badan la socdaan contribution xoog leh bay ku dartay dhismaha quruxda badan hadday tahay iibinta dhulka hadday tahay ku daris qarashii galay dhismaha kan iyo maxay qalabeyntiisa wax badan oo contribution bay ku dartay fulintiina way fulisay haddeerna insha allahu tacaala sida qorshuhu yahay inay maxay bulshada gacanta ugu hayso oo bulshadu ay ka faa'iideysan kartaan si wanaagsan uga faa'iideystaan haddii aan u galo xagga adeegyada halkan laga heli karo sida boorka lagu xidhay boorka halka yaalla waxaa la heli karaa qaybo kala duwan oo adeegyo ah ay ugu horeyso ciyaaraha jildiska xagga sportska waxaa kaloo laga heli karaa maxaa ahayd jiimka qaybta kubadda iyo qaybta jiimka markii la kala saaro qaybta ciyaalka beerta ciyaalka ay ku ciyaaraan oo qalabka ciyaalku ay yeelaan waxaa laga heli karaa dhanka waxbarashada library ee kutub taallo oo weli hadda kutubtan usoo socoto runtii la doonaya inay dadka dhalinyarada wax ku akhristaan oo ka faa'iideystaan waxaa kale ay jira halkaa inoo yaalla oo adeegii ka mida tababaro meesha inay ku qaataan dhalinyarada ay tababaro ku qaataan la baro life skills sida xirfadaha nolosha ay u fahmi lahaayeen u baran lahaayeen xirfado aan iskuullada iyo jaamacadaha lagu baran halkaa lagu siiyo dhalinyarada u noqota kab u noqota si ay u dhisaan noloshooda iyo waayo-arnimadooda waxaa kale jirta qol waxaa jira lab baa jira ICT yiraahdo baa jira kombiyuutarada yaallaan iyaguna dhalinyaradu ka faa'iideysan karaan waxaa kale ku yaalla halkan adeegga laga heli kara ka mid ah waxaa jira howlkan quruxda badan aan joogno oo bulshada u furan cid kastoo doonaysa inay ku qabsato xaflado nooc kasta ay tahay marka meeshan adeeggeeda waa meel dhamaystiran oo cid kasta ay ka faa'iideysan karto saa darteed waxaan leenahay kusoo dhawaada dhammaan inta halkaa joogta iyo intay maqanayna daawanaysa waxaan leenahay centerka maanta kusoo dhawaada centerka waxaa loo sameeyey magaciisii hore wuxuu ahaa youth center waxaa sababta looga daayay waxay tahay waxaan ogaanay in jimicsiga iyo jirdhiska aysan dhalinyarada keliya u baahnayn odayaasha aqoon-yahaniinta gabdhaha kulli loo wada baahan yahay in caafimaadka uu ku xiran yahay haddii caqliga iyo jirka uu dhisan yahay in bulsho nadiif ah oo si saliima u fakaraysa ay soo bixi karto centerka waxyaalo badan oo looga faa'iideysan kara waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay library wuxuu leeyahay meel laab ah oo ardayda assignmentska ay ku samaystaan oo subscription u yeelanayo meelay ka samaystaan waxay noqonaysaa meel ciddii danaynaysa inay saameyn bulshada ku yeelato ay ku qabsato luxurieska iyo wacdiga iyo waxyaalo badan oo ay facilitate doonto tadaamun waxaan aad ugu faraxsanahay inay shaqadan aadka muhiimka ay qabatay xaqiiqdii lacagta gashay centerka iyo waxaa ka muuqda isma leh mashhuur waxbay ku dareen haddana si aad micnaha quality fiicana loo dhisay qalabka yaalla ma malayn kartid annagii ka warhiinay wixii galay baa la yaabanayn sida ay noqotay centerka tadaamun waxaan dhihi karnaa waa organisation ku dayasho mudan oo ciddii maalgelin sameynaysa ay ku aamini karto xoolaheeda waxaan insha allahu tacaala hadafkeenu uu yahay lahaanshaha madashaan ama xaruntan maandeeq
inay noqoto mid ka duulaysa lahaanshahooda guud oo bulshadoo dhan ay dareento inay tahay xarun ay leeyihiin isla markaana insha allahu tacaala iyaga loogu adeegi doono waxaanu ballan qaadnay si ay jiritaanka xaruntaani uu u noqdo mid guulaysta isla markaana bulshada adeegyada kala duwan ay ka filayso inay ka hesho in xaruntaani ay ka duwanaato qaabyadii sisteemyadii hore loo maamuli jiray kuwii hore oo ay noqoto meel bulshada adeegyada ay ka helayaan isla markaana iyaga naftoodii contribution ama ay ka qayb qaadanayaan inay sii jirto inay ka qayb qaadanayaan waxaa ka mid ah qofku adeeg uu ka helayo meesha inuu waxa weeye adeeg fiicanna uu ka helo isla markaana isaga uu wax ku darsado oo hoolkan hadda korontada ka shaqaynaysa mukeefyada shidan qaybta caruurta qalabka yaalla jiimka qalabka yaalla oo ogtihiin haddii muddo la isticmaalo inuu waxa weeye u baahan yahay dayactir maqaaxiyaha ka furnaan doona intaasoo dhan bulshadu inay contribution ku darsato tadaan waxay ballan qaadaysaa sidii hore looga bartay iyadoo hadda maamusha 22 iskuul macaahid farsamo xarumo kale oo gobollada ku yaalla isbitaallo kuwaasna bulshada aan filaya markhaati inay ka wada yihiin sida ay u shaqeeyeen adeegyadaas kala duwan inay xaruntaana sidaas si ka fiican ay u shaqayso bulshadana waxaan ka codsanaynaa iyo dowladda inay nala shaqeeyaan isla markaana ay muxuu ahaayey talooyinka iyo tusaalaha iyo taageerada ay u baahan tahay xaruntan inay ka qayb qaataan hay'adda tadaamun runtii guulo badan ayay soo haysay intii ay shaqaynayeen bulshadana wax badan ayay la qabteen in badanna waxay ka fakeraan inay arrimo badan oo ay bulshadu u baahan tahay wax ka qabtaan ha noqoto xagga bini'aadamnimada xagga waxbarashada iyo xagga korinta iyo horumarinta caqliga bulshada intaba haddii aan dib ugu noqonno beertan quruxda badan maxaa laga faa'iidayaa bini'aadamka waxa ugu fiican oo naftiisa la jecel yahay waa caafimaad jirka haddii uu caafimaad qabo caqliguna waa caafimaad qabaya caqliga fiican wuxuu ku jiraa jir caafimaad qaba arrintaas marka waxay na tusaysaa jimicsiyada iyo riyaadaadka laga samayn doono meesha tan inay bulshada wax badan ku soo kordhinayaan waxaan ku boorinayaa bulshaweynta maandeeq waxay shaqayn kartaa saan loo shaqayno haddii aan soo booqanno haddii aan caqligeena gelino in bulshadu waxay u baahnayd lasii taageero qofkii shaqada qabtayna wuu dhiiranayaa in badan waxaad arkaysaa goobo la dhisay oo mahjuuro noqday marka taasna inaan ku dadaalno oo walaalahayn garab istaagno ka shaqaysayno meeshii u shaqayn lahayd ku soo xirno bulshadii ciyaalku yimaadaan ciyaalka hadda maalintood isjiidaya magaalada oo laga xatuuraya halka markay yimaadaan waa isbedeli doonaan baan isleeyahay magaca maandeeq bal inta hore fiiri maan maskaxdii maandeeq marka wax badan baa ka fahmaysaa mar haddaad maqasho maandeeq intaa kadib waxaa kaloo farxad ah waxyaalihii loo sheegay meesha oo laga helayo meesha ay ku taalla iyo adeegyada kala duwan in loo sheegay inaan bulshadu ay ka helayaan arrintu waa kulliga waxa weeye wax mujtamaca wax weyn ugu fadhiya dadka maskaxdeeda mashquulinaysa baa u fahanay wax badanna waa ka helaysaa iyo dadkana u fiican iyo bulshada qofkii u baahan inuu research sameeyo qofkii u baahan inuu tababar samaysto qofkii u baahan inuu nastoho magaaladu waxoogaa kuleel iyo dareemay ama mashquul meel waxoogaa ku nasto haddaan helnay ama ay dhalintii helaan waa arrin maaragtay guul u ah mujtamaca puntland aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa waan faraxsannahayoo meel bulshadii iyo mujtamacii wax loogu qabanayo haddii lasoo bandhigay ummadoo dhan waa faraxsan tahay aad iyo aad baan maaragtay ciddii maalgelisay iyo ciddii ka qayb qaadatay ugu ducaynayna insha allahu taala ilahi subxaanahu wa tacaala barakeeyo juhdiga ciddii ku bixisay iyo ciddii maalgelisayna waan hambalyo iyo ammaan baa usoo jeedinaya intaa kadib waxa weeye hay-adda tadaamun ah waxa weeye aad iyo aad baa si gaara ugu ammaanaya juhdiga ay waddo
oo ay ka wado geyga Soomaaliya oo dhan iyo Puntland hadday noqoto dhinac waxbarasho hadday noqoto arrimo bulsho hadday noqoto arrimaha magaranaysa mucaawanooyinka dadka la caawinayo meel kastaba iyadii baa joogta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu rajaynaynaa inuu iyagana barakeeyo waxay qabteenna waan ugu hambalyeeraynaa waan ammaanaynaa halaha ka sii wada Ilaahay hayda barakeeyo kani waxa weeye dhismahani waa dhismo weyn oo ku soo kordhinaya bilicdii iyo quruxdii iyo magaranaysa nagaashihii qalbiga in markii investment la sameeyo maalgelin la sameeyo waxay ka mid tahay in qofku kalsooni uu ku helo dhulkiisa iyo deegaankiisa markaad kaliya eegto hadda muuqaalka dhismaha aan ku jira kaliya uu leeyahay howlkan kaliya aynu ka reebno bannaanka quruxda aynu kusoo aragnay iyo qaybaha kala duwan ee halka laga sheegay xaqiiqdii waxay ka turjumaysaa maalgelin dhab ah iyo jacayl qofku dhalinyarada iyo qofku weyn intuu ay u qaado deegaankiisa iyo dhulkiisa marka waxaan leeyahay xaruntaani macno weyn bay inoo ku fadhidaa waa investment marka koowaad oo maalgelin rasmi ah oo magaalada Boosaaso yeeshay weeye gaar ahaan degmada Boosaaso marka labaad faa'iidada weyn oo ay leedahay waxaa laynoo sheegay ilaa iyo 10 qaybood oo kala duwan oo adeega oo ay xaruntaani bixinayso marka waxaan oran karaa xaruntan kaliya ma aha xarun dhalinyaro laakiin waa xarun ku liminaysa dhammaan qaybaha baahiyaha qaarkood ma oranaya dhammaan baahiyaha uu wada daboolaysaa laakiin baahiyo asaasi oo aad iyo aad muhiim u ah oo ama ha noqoto haweenka ha noqoto dhalinyarada ha noqoto odayaasha laftigooda oo galabtii odayga wax akhriyo aqoon-yahana laftigiisu library leedahay library iska gelaya xoog ku akhrisanaya jawi qurux badan bay leedahay fadhiga haddaad xoogaa halkaa fadhiisato waxaa laga yaabaa cudurrada waagi hore innagu inaan qabi jirin oo stresska iyo waxyaalaha la midka ah ay dhahaan inaad xoogaa qalbigaaga ku degsato oo haddii culays ku saarnaad neecawda iyo environmentga quruxda badan waqti aad ku qaadato xaqiiqda xiisay ku gelinaysaa dareen gaaray leedahay waxaan leeyahay marka waxay kulminaysaa dhammaan qoyskii iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oday maamadii iyo hooyadii carruurtii yararka ahayd oo wiifowgii iyo meesha ku ciyaarayeen bahdii isboortiga dhalinyaradii meeshaan marka xaqiiqda waxaan leeyahay meel aad iyo aad maanta waqtiga ay ku soo aaday fursad weyn u ah shacabka degmada Boosaaso iyo aniga xitaa cidda safraysa markaad magaalada xoogaa kusoo kuulaato laamiga soo qaaday shaah waa kaga sii dhufan kartaa kafeteriyadii iyo magaranaysa imkaaniyaedka iyo dadka waxaan leeyahay marka muhiimad weyn bay inoo leedahay aad iyo aad baan ilaahay ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka iyagana in allaale intii kasoo qayb qaadatay oo barnaamijkan maanta meesha uu joogo iyo quruxda ka muuqata juhdi iyo cilmi iyo fikir intaba gelisay aad baan ugu mahad celinayaa iyo doorkii ay ka qaateen hay'adda Tadaamun aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhismaha marka laga reebo iyo waxyaalaha kale ay ku dareen dhulka iyaga ayaa keenay waana qayb ay iyagu ballan qaadeen inay ku darayaan markii mashruucan aanu helay oo qoladan SSB intaasaan bixinaynaa Tadaamunna waxay soo jeedisay inay iyaduna dhulkii bixinayso aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa
aad baan u faraxsannahay maadaama ay dhalinyaradii isku hawleysay dhalinyarada sportska gobolka bari ay u furaan meelo ay kubaddooda iyo xirfadooda ay ku bandhigaan xaqiiqdii aad aan ugu faraxsannahay maantana furitaankii ayaan joognaa waan ku faraxsannahay xaqiiqdii farxaddeena lama soo koobi karo aad iyo aad baa waxa ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb qaadano munaasabadan aadka muhiimka u ah ee lagu furayo garoonkan waa arrin farxad leh runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay noqoto kulan aad u qiimo badan oo si farxad leh noogu soo dhamaada waxaan ku baraarujinayaa dhammaan ganacsatada reer Puntland in ay ku daydaan dhammaan ganacsiga kan aadka muhiimka ah oo ah in garoomo loo sameeyo dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo wax badan ma taqaanaa ka bedela jiilka hadda soo socda si ma taqaanaa aynu horumar u gaarno insha Allah Murah